واسكن حي لانه انا وحيد هذا arrintan aan daba joog inay runtahay inay been tahay leeg soo kala ogaanay يعني isla markii ma dhihin intii wiilkayga aawi iyo waxba ma dhihin laakiin door waxa mathalay dhahdo oo aan iska dhigay naag kala la qabo oo wiil kaleeto oo aniga aan dhalin inuu leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليه قالك واحد السلام دمان ميل والبو أدوني ذا كجوتي ولا ليه قالك عاو حربا إنا إذن لو ذاقو قيسوكو لعضي قبر وحير هذا قبرنا وحان قرصدين أن وحبه سنين مركي قهورنا وحا إسوكو ريسي مرة أب يعني عرفت مرة أب وحيد هان إن ناكت أباها قبو هو إذا أنا يرى لما تيد هذا أنا ما بأركن بو ما نسو أقلي يسن هو إذا ينول الحمد لله waxay soo korisay dhahda naagta aabahayna ma xanaaneen jirnay dhahda war iga mahaynin aabahay naagta laba gabdhood ay u dhashay isku siyeen in cibiin iyadii labadeeda gabdhood marka waxay dhahda waxbarashaan ka baxay alxamdulillah shahaadadeedan shaqo ku helay meeshan waxa waaye shahaadada micno ma leh loo yeelo ma jirto carabta waxa waaye shahaada haday haystaan shaqo yar oo basiid xataa way iska helayaan haba iska lacag yaraatee marka waxay dhahday ninka ugu horeey oo isoo doonto waxba ma haysanin waa iska ogolaaday dhahday sababtoo ay cadaabta aan ku jiraa ka weyneed marka waxay dhahday ninkii kisti oo haystayna guriga iyo alaabti iyo wixii uga baxday qarashki haddana waxay dhahday waa dadka jecel oo yani wax la'aanba inaysan ahaanin oo jajab yar hadoo waayo maanta waa iscuncuna guriga ma ka baxay dhahday aniga noloshayda hore u sii wata hadii lay guursaday xataa shaqadayda iska sii watay dhahday ما شاء الله وحيد هذي أساق دتك وحاول فانك جعلوا بيبتوين كإيميله قحوة إيه مركي لتجو أدوسن أصحاب تكبي حين كرين شاي قحوة مالين كاس جورج ما كبحاي مركي وحيد تري أنا جا شقدي إذا إسك هذا هي تري مالين مال ما كم إذا واحد نوصدي إسبيتالو إيجي مركي إسبيتالك إيجي وحال هي مبروك حامل وينك هذا أنا وحيد هذا فرحات الدنيا مال إيدي قدام واي أساق وحيد هذا وحن كدر يمي ديقو إيو يعني حوجا إنه إسقالي أو سون كفر حين أوركا جورجا إيماني وحان ده تري محاد على أوركا من كفر حين مياه أنت أنكسر بحنا إسبيتالك إلا أن جورجا كإيمان وحناك سنايت مركز وحنا محاكو قول عاي ما كفر حين مياه أوركا مركز وير أور هذا أنت المهدي نشان عنك هذا هدي أو إمام أنا ما شقي أذيك اللي شقيسد أنت وحلا كنا وحنا ده إرساق ده إلهي واسع وعنق والبو إرساق دي صوتاي محاس قوالي ولا جوجي هذه أنا شقدي إذا إسك هذا وحيد هذا شقدة أنا أنك شقي شروط إذا وحيد هناك تهدي لك بقول كصوب حتى مركي للشو إيه وحيه لي فسح يعني سدح بلاد فسح على سينا مركي للشو لكن أنت لا يسوي شقينين مركا أوركي أفر بلاد جاري أو حد هي تري فرحت أنا وحيد هذا إنه عنق سوق هذا ربع ويل مية جبر مية مركا سام حد هذا ولا له يود إسبيتال كإيجي محل هو حسوق جانينا جنين كوحيا سوق جانينا سو إسعن عنايو يودي إسبيتالك هدان تجني وحال يري مبروك تو أمل جوا ذا ماذا حوق عن تصارت هلا بك قيلنا وده لا بمية مركز عن حان هيتر الحمد لله رب العالمين مركي يقول رئيس أو أنا هاي نقطة أو إلهي يقول إرساق مكانه أنا هذا أفرح هذا مركي وحيد هذا ويجيس أو إسبدلي أو حناقي دكتور كيا فهمي ترتيب جوني ولا بحي مركي أو أنا أو علوشي اللي سوف يريتري خلاص أو دركيga aan soo gashtay oo soo bixi rabno doctorka gooni ula baxay asaga kaar soo si markaas wuxuu dhahay lambarkayga qaaska ee waay ila soo hadal naagtaadana waxa u sheegtaa oo dhahay xaaladeeda caafimaad ana la soconaayo anaana dhalinaayo خلاص waa iska soo baxnay tir aniga caadi ah ila ahaad muddo la joogay waxay tiri in shaqadeeda iska watay asina shaqa la'aantiisa oo meelaha iska taagnaay tiri sababtoo ay aniga horta ninka waxa u guursaday tiri dibka iyo rafaadka ilmaha ila dhasheen gabdhaha ila dhasheen iyo hooyado dibka igu haayeen marle ma ka baxdaa iga aheed alxamdulillah reerkaygana ani maqsuuda ku dhahday gurigaygu waa ii dhaqan yahay ani aan biilo ani aan soo shaqeeyo dib ma qabiyo dhahday laakiin ninkan wuxuu isla cuncunaa shaqana ma haayo shahaado waa heestaa laakiin meel walbo tago shaqo ma laha naal soo dhahaa yani wuu soo weynaa shaqo الحمد لله رب العالمين وقتي دلو قال قاريتر انتي ان كدلنا اسبيتالك وحا لا سعوديتر دختركي ilmaha way caafimaad qabaan wiil ii gabaraa wada waxay dhahday kaali iska arag farxadeeda meelaan istaago aan la ahay marka waxay tiri isbitaal
isbitaalka la iisoo wada xanuuna ay qabtay isbitaalka la ii keenay waqtiga dhalowga markii la gaaray diktoorku wuxuu dhahay dabiici muu dhalayso waa la qalaa waa la qalay dhahday wax yar kadib adi markaa soo naaxay oo sunta iga baxday qol caadi la ii keenay waxaa ii imaadeen tiri siistarad يعني kalkaalisadii oo hal cunug wado iyo diktoorkii markaasuu diktoorku wuxuu idhahay wiilkii waa kaa saqiiray gabadhiyaa kuu nool wiilkaagana saqiir aakhir ilaahay ha kaaga dhigo waa isxalool xumeeyey tiri aniga hooya ahay aadoo isku calool xumeeyey dhahday kadibna waxaan dhahay alxamdulilah rabbilcaalamiin labaa ilaahay isii mid hadduu ilaahay iga jeclaysta saqiir aakhir ilaahay ha iiga dhigo markii dambe waxay dhahday 3 maalina ku jiro isbitaalka 3 maalin kadib isbitaalka markii la iga soo bixiyey waxaa jirtay dhahday naag oo cimaaradda nala degan oo islaam weyn oo ilmo aan qabin waxaa qabo marka naagta waardiyaha oo cimaaradda aa qabo marka aaday ii dhaqaalaysaa ay dhahday islaanta marka waxay dhahday intaa uurka lahaye waxay tiri haddaa dhashid maalmaha ugu horreey anaa mishaarida kuu karinaa insha allah waxay dhahday 2 maalin camal markii gurigayga markii la ii keenay oo islaanta 2 maalin camal ee wax ii karkarinaysay ii kaalmaynaysay maalinkii saddexaad ay dhahday ninkayga shaqaale la ordaya imaaday markaas waxay dhahay qadaama kuu keenay ida kuu kaalmeynayso cuntada kuu karinayso dhar kuu dhaqayso islaantaana ha dhibin markaas waxaa dhahay tiri intee wax ka keentay aniga siriisa aniga meel dhigta yani aa ogeed kistaasna umusha oga baxooyahe gabadha intee loo keenaa yani raatib intee loo keenaa mushaar intee loo keenaa markaas wuxuu dhahay aniga gabadheeda farxada ii aheedo alxamdulilah rabbilcaalamiin shaqaa helayo lacagaa helayo waa kaasa ogow markaasaan waxaan dhahi tiri okay dhib ma lahan خلاص على كل حال شغالة لإيه كانت ترنيكي تاجر وبنقض العقد ميلا كل دقة ملة مدة هدي لجوج أو أنكبحي محلها أو مش أنكبحي وحولها ما بشقيني يسدبو بابور كعصب قال إسك أرق وحيد هذا مركا أو مش كبحي جروج عفش كل أول اللي قبل دل فردي وجيفو وحك استق وجروج نحيال ولا اللي قبل دل هذا عسام على كينه أنا ويا بني هذا مركا سانات ورديها مركا يسوق كشيء هذا عمر ولا بقي إيماته أنا مؤتجي جرني هذا لكن دائما إذا إيماني سي وحيديه سي محاوبة هنتهي يعني مساعدات مربتا يشك الماء وكاهينا حوجا إسكنا سعنق وكاهينا مركا هذا إذا قاليني سيتر ولا جينا أنا جروج إذا ما تجينا هذا وهذا هذا نكاج أنت وكا كان بابور جديد جروج يلا جاب بدله وحان أنا تكي إمادين والله ما فهميني هذا أنا نينكي وحيد شقاهل على كل حال نينكي وحاول سوء استاجيبه shaqadii aad ka shaqeynaysa 3 bilood intay ku dhamaanin oo dhow shaqa ile laga rabaaye waa fasaxee waxa dheex kala shaqa marabi waa laga kansala cunugtaada haysana gurigaaga jooge way hadee tir shaqadina waa ka soo fariisto gurigayga iska imaan muddo hadaan joogay tir oo cunugtayda 4 bilood 5 bilood ay gaartay oo wuxuu dhahay carabta waxa waay waxay maxal dhahaa isheeg ee ku dayanayaan ajaanibka iyo turkida ma ogtahay markay dhalaan waxay leeyihiin kala dheereynta dhalmada isticmaalayna cirbada la istura ama kaniiniya la caba marka waa la isu sheegaa naagta ninkaada inay u sheegto waay ama hadhow asaga dhahay jooji wax la kala qarsanayo malahan markaas wuxuu dhahay tiri ka waran hadda daawooyinka aad joojisid oo ilma aad dhashid oo ilaahayna nagu irsaaqato am markaas waxaan dhahay tiri adiga oo uurkan markii cunugan ilmahan uurkooda aan yeelanaysa oga isku xanaajinaysa ma ilma raadinaysa markaas oo dhaa walaa anisaan ma ogeen ilmaha falxad waaye irsaaqad socota waaye ma sha Allah maxaa la cunug kala noo dhan yaareed tow amoo dhahay yaareed mataanihiin waa la iska joogay dhahda adiga gabadheedii adiga muddo daawooyinka ma joojinin tiri hayaa iska dhahay daawooyinka ma joojinin muddo adiga gabadheedii 6 bilood 7 bilood ilaa sanad daawooyinkayga waa cunay dhahday waa la iska joog waxay dhahday maalinta ka dambaysa wax la helayna lacag meel la kala geeyo ala la'yahay ninka waxay dhahday baabuurka iska bedel business sameeyso meel furo shaqaale keenso ani waa yaabay dhahday subhanallah adi muddo hadii la joogay tir hal sano camal markay gabadheeda gaartay ilaahay amarkiis uura yeeshay dhahday uura yeeshay tiri markaasaan waxaan dhahay tiri waa xanuunsanaya isbitaalka tagayna haye isbitaalka tagna diktoorki ilmaha iga dhaliya oo tagnay dhahdo oo uurka horena iga soo sheegay diktoorki marka wuxuu dhahay mabruuk xaamila tahay bas 4 bilood marka gaartay jiriinka la ogaado yani wiili gabar waxay yihiin hal ogaado soo noqda haye waayahay waxay tiri nolosheena waa iska sii socotay alxamdulillah sideena iskaga dhaqneen wax naga halaysan male naagta oo waardiyahane waxay tiri inaan soo nacaan bilaabay sababtoo su'aalay nafti iga qaaday
يا بنت الحلال انت وحان دن حوله ka imaanoyin see wax u jiraan yaqayha inta waqinka ilaahay risaaqadiis waasac ka dhiga ilaaf waxay dirnaagti kabtay isaartay adi mudaa la joogay tiri waa baxnay dhahday 4 biloodan gaar waa israacnay ilmaha la soo ogaana asagiyaaba ka fadhin la ahay tiri markaasa waxay dhahday marka 4 bilood gaar oo aan diktoorka u tagnay oo wuxuu dhahay mabruuk tawam ninkii waxay dhahday diktoorka cunug camal u xambaaray diktoorkina farxad diktoorka cunuga asmaa loo dhalooyaa isdhahay tiri marka waxay tiri maalmaha kamid ah gurigeyga anoo joogo aan telefishinka anoo fiirsanayo waxaan arkay dhahday barnaamij oo ka hadlaayo nin faqiir ahaan jiray oo ilmihiisa mid kamid ah gatay oo taajir noqday markaasa waxaa isdhahay tiri yani waxaan isku soo xirxiray dhahday axdaadkii oo dhacay wixii oo يعني سامركي هورا اهين اسينو لاشين اسكو بدشي iyo بسم الله الرحمن الرحيم وعود بلاستي دحday isla markii telefishinka waa iska damiyay خلاص hawsheeda iska galay dhahday cunteeda wax iska siistay shaqaaladina waa ii joogtaa marka waxay dhahday meesha aan fariisto ama aan wax aan qabanayabo qalbiga waxa iig soo dhaca barnaamijka oo telefishinka marka waa ismo mootinay dhad waa cud bilaysana marka shakigi waa igu weynaaday tiro maalmaha ka dambayso waxa isdhahay tiri adiga mataana wada ilmahaaga caafimaadkooda taam waay lagu dhahay cunugaaga meedkiisa xataa laguma tusin cunugaaga waa dhintay lagu dhahay fajaa markaa dhashay ama ninka cunuga ka gatay haddana waxa isdhahay tiri cuudu billahi min shaytaani minni ninkan horta bidaad ninkan saan ku jecel oo ku dhaqaaleynaayo oo ilmahaaga saa oga naxaayo oo rababa wax kale inaa u dhashid maaba maxaa lahaa isheeg ilmahaaga kaa gadanayo mar walba waa cuudu billahi istahay tiri marka waxay dhahday fikirkii iyo isla hadalkii waa igu batay dhahday marka meel yar haddaan saa u fadhiistay tiri oo aan ama cunugta wax siinaayo ama aan kaligay xataa meel fadhiisto anoo waxba qabanayn waxay dhahday cidyaha iska guraa saasaa leeyahay tiri mana dareemaya dhahday ma u maleeya cidyahayga inaan guraayo saasaa leeyahay dhahday saas aan leeyahay tiri waxaa qalbigay kusoo noqnoqonayso barnaamijka qalbigay waa ka bixi lahayaa nin faqiir ahaan jira oo ilmihiisa mid kamid ah gatay oo taajir noqday وعود بلاستي هذا بسم الله الرحمن الرحيم وحا اسكو دايتري إنا اسمشغوليو مالمي دم وحان هيتري شقالة مربو خلاص قرقيق أنا كفلا وحان ربا هذا تفكير كبدن فكر كبدن إنا اسكيرايو أو آن شقايو أو هول قبطو أو اسمشغوليو سا فكرك أو إيغا يرادو وحان هذا ولا شيء وحا اسكا كي بدلويو مالعجي سيدي لي أقرويا سيدي لي وحان هذا أم قانا هاي مرمار أداك قعانتو أسارنا وإسلا يابانا هذا marka waxaan bilaabay tiri inaan baxo oo aan u tago naagta jiiraankayga oo wardiyaha qabay inaan u tago waa la sheekeysanahay tiri markaas waxay dhahdeen adiga maxaa kugu dhacay mana ii imaan jirin waxyaalo badan waa iska ka bedeleen tasarrufaadkaaga iyo dabeecadaada waa isba bedeloysay maxaa kugu dhacay shaqaaladan maxaa iskaga burisay maya wallahi gurigayga anaa ku filanaa dhihi tiri waxna ma igu dhicin waa ka cabsanahay tiri sababtoo qof kaleeto oo horta aan raadinayo oo wax ku qarsanayo ama aan dhibkayga u sheeganayo ma lahayd dad iida iigu dhow iyadana su'aalaha faraha badan ku nacay tiri markay ii imaata xataa maxaa lahaa sheeg bi ay dariiqa iiga tagta waa sameyn jiray dhahdo waa ismashquulin jiray waa isurdisiin jiray hadda waxay dhahday anigii ah bilaabay inaan iid u tago marka saa ugu sheegtana waa la ehay tiri oo se ugu sheegataa oo dhibkan ku haysto ugu sheegataana waa isdhawayaay tiri haddana qof kaleeto oon haayo malahan ay dhahdo oo iida ahayn muddaa la joogay dhahday markii hore horta waxaan ku fikiray dhahday intaan u sheegin naagta aan u sheegin ina asaga weydiiyo haddana waxay dhahday waxa ay dhahay ninkan hadaa weydiisid haa cunuga noo gaday maxaa la saaran ku taajirna ma ku dhahaye xoogaa isceli bal ala kulli xaal waa iscelin waayay tiri markii dambe naagtiya u tagay mubaashir naagtiya waxay tiri allah ugu sheegay waxaan dhahay saana ay haysata saasa meel ka arkay saanaan ay haysata markii aan wixii isku xirxiraynay shaki weynaa ka qabaa ninkeyga waa ogaanaynaa tartiibaan u ogaanaynaa cid kale ha u sheegin xataa waxay dhahday waardiyaha oo ninkeyga ha u sheegin qof wax loo sheegaayo ma lahan aniga ninkeyga u sheegaya dhahda adi ninkaaga waxba ha weydiinin naagta duqdaa dhahaysa moogtahay waa la joogay dhahday muddo haddii la joogay waxay tiri naagta waxay dhahday intaanu wax samaynin si aan wax u ogaanaan rabnaa intaan annaga wax samaynin ani adigabo intaana samaynin ninkan kaanoo maa saar shay camal isu seexi sidii hore isi ka fiican iskaga dhig ma fahantay waxaa ka samaysataa guri adiga aad leedahay oo adigu aad ku qoran tahay ka dhammayso maadaama ninkanba uusaan faja'atan
oo taajir ku noqday. Okay aan dhahay tiri adi ninkayga u seexseexday tiri muddo waxay dhahday waxaan ka dhammaystay inuu guri ii gado. Gurigiyaa la ii gaday tiri laakiin gurigii la iima dhisin waa ballan waa lagu dhisahaa lay dhahay. ilaa waqtigaa socday waxay tiri caloosha waa soo weynaanaysa uurki waa soo weynaanaya haddii oo maxaa lahaa intii guri laga dhisaa iyo hawshaas la galaayo waxay dhahday ilmihii aan dhali karaa haddana kii kale cunuga kaa dhinta cunuga kuu jooga la dhihi karaa. anigii shakigii waxay dhahday aad u iigu fiday. marka waxay dhahday naagta waxay tiri waxaan tegaynaa ayaga meelaha oo mindaawaadka iyo cashaabta mindaawaadka meelaha oo lagu gado waxay dhahaan cataaray dhahaan. marka cataarkaa tegaynaa daawo cashaabaa kasoo qaadaynaa oo mindaawaad cuntada uu daray wax ma dilayso laakiin xubna balaqay ku riday yacni lafaha maaragtay ma ka istaagi karo tacbaan markasta sariirta loo saarnaana shaqa ma aadi karo meel ma aadi karo haddoo oo maxaa la maalinba maalinta ka dambaysa woo soo daciifaa casaabta dhanay dileen yacni waxay lafaha ee tabarta ka dhamayneen. khalaas waxay tiri daawadiyaa la soo gaday cashaabtiyaa la soo gaday maalinba maalinta ka dambaysa kisa ugu dara adiga bil iyo bar markay maraysa sheekada heer wuxuu gaara oo sariirta kasoo degi waayo oo haddoo raba xataa inuu soo dego markuu istaago dhulka ku dhacaayo. markay shaas sheekada marayso waxay dhahday naagtii waxay soo dabartay nin dictoor oo beenbeen dictoor beenbeen ahay keentay naagti iyo aniga iyo dictoorka beenbeenta basa isu dictoor beenbeenay keentay waa u faxasay tiri waa baaray wuxuu yidhi dhiigan kaa qaadaa insha allah jawaabtana beriyaa lagu soo siinaa. dhiigoo ka qaaday tiri maalintii ku xigtay dictoorkii waa la sugi waayay dhahday ninkiya wuxuu dhahay dictoorkii wacbal ani waa ka darooyaa. dictoorkii ala waa loogu dhiibay waxaa la dhahay wallaahi cudurkaaga wax laga qaban karo ma lahan maxaa yeelay waxaa u baahan tahay dhuux yacni luqaaxa shookiya dhahaan haddaa wiil qabi lahayd wiilkaagaa lagaaga bixin lahay dhuuxaas lagaaga qaadi lahay adaa lagugu shugi lahay luqaaxa shookiya la dhahaa qofka markuu wiil leeyahay bas cunugiisa le qofka looga qaadi karaa. marka waxay tiri markaasaa laakiin lilasaf oo dhahay dictoorkaa dhahaay lilasaf wax ma lagaa qaban karo lianuu wiil ma lihid. markaasoo dhahay cindi wiil waa leeyahay ani waxay tiri waa isku naxay lianuu aniga waxay dhahday arrintan aan daba jooga inay run tahay inay been tahay leeg soo kala ogaanayay yacni isla markii ma dhihinay tiri wiilkayga aawa iyo waxba ma dhihin laakiin door waxaa mathalay dhahday oo aan iska dhigay naag kale lala qabo oo wiil kaleeto oo aniga aanan dhalin inuu leeyahay haa naagaa qabtaa miyaa wiilaa lagu haayaa miyaa. markaasoo wuxuu dhahay naag ma qabi wiilna la iima haayo wiilna wiilkaaga waaye wiilkana wiilkaaga waaye wiilkeyna oo adiga aad dhashay waa gatay aniga iyo dictoorkaa gadanay ciidan lacag leh oo aan ilmo qabin aan ka gadanay oona ii ballan qaaday noloshayda inta ka dhiman inaan taajir ahaanayo lacago fara badan isiiyeen oo mar kastan lacag isiiyo aniga iyo dictoorka aana kala goosano wixiina lasoo siiyo dictoorkaana keenay ciddaas yacni ninkii waa laga dhaliyey. waxay dhahday laakiin jirkiisa ninka waxba ma laga qaban kara lafihiisa khalaas waa u dhammaatay cashaabtiyaa dishay. marka waxay dhahday muddaa la joogay isbitaalka maxaa lagu qabtay tiri dictoorkii igama dhalinin ani dictoorkii waa la xiray dhahday ninkaygana isbitaalka oo waxaa la geeyay dhahday oo dadka waalwaalan laakiin dictoorkii wuu noo sheegay dhahday cunuga meesha lagu haayo cid lacag lahaa haysato cid oo dhaqaalaystaa haysato cunugii hooynama iima aqoonsano waxay dhahday gabadhiina naagtiyaa ii hayso anigana isbitaalaan hadda ku jiro waa dhalay dhahday. marka gabadha qisadeeda iyadaa ka sheekeynaysa marka waxay tiri asxaabteyda qaaliga aniga isdembiya dhahday dembigeyga maxaa waay ninkayga inaan dilay si aan cunugeyga u helo mase cunugeyga inaan ka sabray ahayd si oo ninkayga iigu caafimaad qabo. marka waxay dhahday dembigeyga kooyaa ani waa fahmi la ahay. marka asxaabteyda qaaliga idinkana haddaa ka hesheen videoga fadlan subscribe like share comment nagu